inta la xaqiijiyay 17 qof ayaa ku dhimatay 28 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qaraxa oo ahaa baabuur lagu soo raray walxaha qaraxa ayaa ka dhacay goob aan sidaa ugu fogeyn bar kontarool oo ciidamada amniga baabuurta ay ku baaraan isla markaana laga ilaaliyo ammaanka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho dadka ku dhintay qaraxa waxaa ku jira sidii la xaqiijiyay dad xujeeya isla markaana tigidhada ay ku xajilayeen ka soo qaatay goobo tigidhada laga goosto oo ku dhow agaarka isgoyska nambar 4 ee magaalada muqdisho dhismayaal u badan goobo ganacsi hoteelo iyo goobo kale oo shidaalka baabuurta lagaga shubto ayaa ku burburay qaraxaasi baabuurta gurmadka degdega ee gobolka banaadir ayaa goobta tagay isla markaana ka qaaday dhaawacyada gaarsiiyeyna cisbitaalada magaalada muqdisho saraakiisha laamaha amniga dawladda Soomaaliya oo war qoraal ka soo saaray qaraxaasi ayaa sheegay in la fashiliyay laakiin qaraxa waxa ku dhintay dhowr iyo 10 qof inta la xaqiijiyay ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi waxaana ay sheegeen in ay beegsadeen fariisin ciidan oo dawladda Soomaaliya ay ku lahayd halka uu qaraxa ka dhacay Cabdicasiis Ibrahim Xawadoke TV Universal magaalada Muqdisho